annagu wax kala ma qoonsan madaxweynuhu waa madaxweynihii ummadaas safar uu ku tegi karaa deegaan ku doono laakiin safarka waxbaa ku dhex jira xiriiruu nala soo sameeyey ama annaga naga dalbaday ma jirin wuxuuna ka sheegay isagoo magaalada beledweyne ku sugan inuu meeshii tegaayo uu consul soo dhisaayo consulkuna waa dabcan xildhibaanada deegaanka ka soo jeeda anigu shaksiyan deegaankan ka soo jeedaa xildhibaano kaleeto badan oo ka soo jeedaa jiro haddii aan iswarsanay maanta madaxweynihii meeshuu ku socdaa wasiirka arrimaha gudaha ka horeeyo oo annagu aan meesha ku ogeyn oo arrimo ka waday sidee marka isu qaban kartaa inagii aan naloo sheegin oo aan nala dhihin waxyaa lasoo qabanayaa hawshaa lasoo dhamaynayaa dib u heshiisiinaa la samaynaa nala dhihin sidee isu qaban kartaa madaxweynuhu inuu meesha tago asaga keligii hawsha soo qabto sidaasaan ku qoonsanay waxayna annagu wax kale ma diidan soo dhawow marka safarka inaa qayb ka ahaan weydeen wey ujeedadiin laakiin xataa bulshadii meesha deganeed inaysan raalli ka ahayn oo xilli wergigii aysan jirin madaxweynuhu reer uu ka dhashay reerkiisaba u tegin wama soo salaamay anagu intaas waa midaan qaadayno madaxweynuhu khudbaduu jeediyey marka uu magaalada tagay waxa uu sheegay inuu la kulmay odayaasha iyo dadka deegaanka iyo waxgaradka waxna uu ka weydiin doono tabashooyin jira oo aan telefoon lagu xallin karin marka waxa intaa dhaafsis inaad rabtaan maxaa wey ciduu la kulmi doono ma naqaano laakiin maanta cidaa reerkiisa ahan lamuusa kulmin dadka deegaanka haddii lala kulmaayo isagu ma dawladnimo ku socdaa mise qabiil hadduu qabiilnimo ku socdo reerkiisu lasoo kulmaayo hadduu dawladnimo ku socdo nidaamka saxda waa taqaanaa deegaanka markaad soo booqanayso ood madax sare tahay xildhibaanadii laga soo doortay waa inaad hore u kaxaysato ee iyagu ku horgalaano sida saxdaa saas waayo hal xildhibaan oo deegaan ka soo jeeda oo safarka madaxweynaha ku weliyey ma jira miya maya deegaanku waa la wada leeyahay reerkiisa qofan ahayn oo la socdo ma laha ma qasaba marka inaad idinku isaga la socotaa miyaadan gadaal ka tegi karin maya haddii maslaxad loo socdo waxa la raadinayo waa maslaxad maaha in kala fogaansho la raadinayo waa in maslaxadda laga wada shaqeeya tan kale anagoo xarunta dowladgoboleedka joognaan arrimaha ka wada hadalnay arrimaha la isku qabtay arrimihii la isku qabtay iyadoon xal loo helin uu rabaa inuu isagu meesha iska tago uu anagu yidhaahdo waxbaan qabanayo taasna ma shaqaynayso maxaa wey arrimaha la isku qabtay maxaa wey xilligan inaysan munaasib ahayn gola degaan in la dhiso sababta magaaladu waa go'doon dhibaataa ka jirta in hadda lasoo xareeyo 300 ama 500 oo erga ah oo haddana cadowga loo loogo oo la yidhaahdo ergadaasaa ka qargay xagee ku noqonayaan ergadii magaaladu ma joogto 500 oo dhalinyaro ah oo codayn karta waa in laga keeno tuulooyinka ninka tuulada aad ka keentay ee aad 3 maalmood 4 maalmood codayntii ka heshay ee gola degaan markii la dhiso gurigiisu ku laabanayo gurigiisu wuxuu ku yaallaa tuulo ka mid ah tuulooyinka waxaa jooga nimankii sida uga noolaanaa dhibaatada Soomaaliya oo dhan bay ka jirtaa buuro bartagaar oo maahan meelo kale oo gola deegaan laga dhisana way ka jirtaa waana laga maarmay haddaan idinku wax dhaasisan ogeyn hirshabelle dhan waxaa laga dhisay degmada warshirna iyada ilaa iyo balcad waa nabad meel waxa ay xukunto dhanba warshir waa nabad oo nabadgelyada joogaan marka hadda doodiina waxa weeye madaxweynuhu inaanu cadaalad ka samaynin safarkii uu ku aaday magaalada iyo wafdigii la socday maya waxa uu u socdaa sun cadaalad inuu ka sameeyo uusan rabin tan kale magaalada dad baa ku dhintay arrimahaas golaha deegaanka ay ugu dhinteen dartood mudaharaadaa ka dhacay dad baa lagu xabaday waa la dilay dadkii la dilay oo aan laga wada hadlin oo aan laisla meel digin gola deegaan kuu samaynaa qofka soomaalidu dhaqan iyo xeer bay leedahay xeerkii in laga booda ma aha qofkaad dishay haddana gola deegaan kugu dul samaysana sax ma noqonayso idinku in idinla wado oo meesha idinla geeyo mooye inaad inta tagtaan dadkiini la kulantaan waad matashaane wixii tabashaha ay qabaan aad hogaanka kala hadashaan ma awoodi kartaan annagu asaga kuma xirnin 2 isbuuc ka horaan ka nimid annagoo wafdi ah waa wixii annaga dhinaceena khusay waa soo qabanay danaheennana waa soo qabanay ummaddii wax alla waxaan kusoo raalligelin karnana waa kusoo raalligelinay cabashadoodiina waa soo dhegaysanay waa ula nimid asagoo johor jooga waa hor dhignay wuuna diiday inuu wax ka qaato ciidan xataa qayb ka mid a 50% inuu qaato waa diiday maxaad doonaysaa marka in wax lagu xalliyo annagu wada hadal in lagu xalliyo oo ummadda dib u heshiisiin loo sameeyo ummaddu ay wada hadasho isaguna waa madaxii ugu sarreeyey uusan qayb ka noqonin waa in ay dadku iyagu wada hadlaan maaha mugta adiga marjicii loo noqon lahaa haddii la bilaabo oo laga bilaabo hadda xagee loo noqonaya marjici loo noqon lahaa qofkii ugu sarreeyey madaxweynuhu wey madaxweyne waxaad leedahay qabiil buu u socdaaye
uma socdo state maamul uma socdo isagu waxaa rabaa markii annaga iyo odayaasha markii ismari waayo waa in annaga naloo yeero innagoo xildhibaanaha markaan ismari weyno waa in iyaga loo yeero isaga iyo madaxweyne ku-xigeenka baarlamaanka in loo yeero iyagu markaa marjac u dambeeyo laakiin weesaqaad lugaha laga bilaabay adduunka kama shaqayso waa in weesaqaad meel laga bilaabo leeyahay xildhibaan waxaad xildhibaan tahay oo dadka matashaa muddo 3 sano ka badan 4 sano ayaa gabagaba ah oo bilooyin ka harsan yihiin adiga iyo dadka kale ee kula midka ah Buulo Burdo oo 7 sano go'doon ku jirta oo aan hore looga hadli jirin oo aan hore qiimo iyo muhiimad dadkeedu lahayn wax hadda loogu loolamayo media loo taagan yahay ma xilbaa mise wax kale adeer adigu hadaadan la soconin ma garan karo laakiin Buulo Burdo maalintan soo galay ilaa iyo hadda raga xilkooda ku waayay werigan buu ka hadli jirnay waa magaalada ugu hadalhaynta badan dowlad goboleedka Hirshabeelle waa magaalada maamulkeeda inta badan dood badan ka dhaliyo waa magaalada maamulkeeda 3-4 jeer isbedelay oo inta badan anagu waan ka hadli jirnay hadda taariikhda dib u soo baar dhibaatada ay qabto iyo waxa kaliya laga hadlayo waxa weeye in isbedel maamul la sameeyo oo mansari loo bedelo oo bilooyin badan aad bedeshaan waana tala idinka timid sida ay sheegeen wasaaradda arrimaha gudaha oo saraakiil ka tirsan annagu weli qolada weliba anigu reerka meesha inta badan maamulkaas qabta aan xildhibaan u ahay annagu hebel hal la bedelo weli maynaan bixin annaga ninkii u dambeeyo hadda la bedelay meyd waxaa layidhi maxaa uu dambeeyey kaa la sii wado cabdicasiis duurow baa laga bedelay inagoo diidan oo yaan la bedelin war dadka yaan laysku dirin leh oo beledweyne joogna xildhibaanadeenna ayuu madaxweynuhu amar wuxuu ku bixiyey in gudiga arrimaha gudaha uu bedela ninkaa shay waa in waxaada miraha la guranayo oo cawaaqibtay dhibaatada meesha ka taagan tahay madaxweynuhu isagaa ku amar taagleenahay shaqa uusan la waxaa laga rabaa sidii wasiirka arrimaha gudaha shaquu leeyahay waa in loo dhaafo xildhibaanku shaquu leeyahay in loo dhaafo degmadu shaquu le category leedahay categorida madaxweynaha hadduu soo gudbo runtaa loo sheegayaa waa maasanta waa kusoo gabagabeynaya geesta kale waxaa jira mooshin la sheegay maalmahan hadalayntiisu taagneed maxaa xog iga siin kartaa mooshinkaas moshinku waa jiray wax toosin unbuu ahaa hadda ma ahayn xilka qaadis ma ahayn waana hakinay anigu dadkii special hakiyan ka mid ahaa si macnaha xilliga la joogo hadda aysan ku habboonayn oo in mooshin waxa iyo la galo maadaama waqtigu gabagaba yahay inagoo markaa fiirinaynay madaxweynuhu inuu arka laftigiisa in dad u damqanayo oo xilkiisa weli raba inuu sii hayo inay jiraan annagoo tusaynay laakiin wuu garan waayey oo maanta waxaasuu abaalkii ku guday inuu asaga dadkii iska hor keeno ama dhibaato keeno ayuu abaalkeena ka dhigay su-aasha ugu dambayso Buulo Burdo kaliya kama hadlayo Hirshabeelle ka hadlayo oo xildhibaan u tahay muddadaada oo ay bilooyin ka dhimanta adiga iyo saaxiibada maxaad leedahay Hirshabeelle waa uga tagnay oo aan hayn xilka qaadis iyo xilliibis magacaabis aan iraahdo iyo mooshin ka laabasho iyo dood waxaan hayn oo Hirshabeelle lagu soo kordhin jirta Hirshabeelle horta sidaba aasaas la dhisay oo zero minus weli laga soo bilaabay ahayd Soomaaliya 30 sano dagaal ku jirtay caqabadaha hortaagan waa dareemi kartaa weliba markuu dhasho hore kama socdo waa in uu muddo ay ku qaadato waaye annagu shuruucdii dhisnay waxa aasaaska ah ee qofka berri ama bedela annaga ama imaan doona mustaqbalka ama jiilka soo socda waxay ku shaqayn lahaayeen oo shuruuca waxba ma degsaneen waa la socotaa meel zero naloo dhiibay shuruucdii oo dhan waan dejinay shuruucda ma ii sheegi kartaa waa dejiseen maxaa wey kan hadda aan doodiis aan ka hadlayno golaha deegaanka sharcigiisa annagaa qornay annagaa samaynay dastuurka wax ka bedelaan ku samaynay sharciga ganacsiga haddana hor yaallo sharciga maaliyaddan aan ansixinay waxaa kaloo ansixinay dhowr sharciyo kale wasaaradaha ay leeyihiin sharciga shaqada iyo shaqaalahaan ansixinay sharci shaqo iyo shaqaale iyo sharci maaliyadeed iyo sharci ganacsi intaasoo dhanba baahiyo ka weyn baa jira oo ka daran ileen dadku baahida hadda wax ka weyn baa haysta oo amnigii iyo maamul wanaagii ugu daranta midna kama inaan qaban waxba Soomaaliya waxa meeshan gaarsiiyay waa sharci kala dambeyn la'aanta waaye wad adduunkana sharciga lagu hagaayo sidaad ka warqabto haddii sharcigii anigii adigana kala saari lahaa uusan jirin inaan ku imaado xukunka sheegi karo qoriga dhibka kale ka qaado kuma dhigi karo waa in horta uu jiraa sharci aan usula noqono aan wax ugu sheegno annagu shuruucdan xooga saarnay shuruucdina waa samaynay hadda kadib aan wax usoo jeesanayna hadduu alla wadaleedmo horumarkii iyo waxaan qaban lahayn xildhibaan Ismaaciil Aalan oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka ee maamulka Hirshabeelle ayuu kaasi saaxiib gabagabada barnaamijkan ku dhigna magaalada Galkacyo ee gobolka Mudug ee Soomaaliya dhinaca waqooyiga ee Puntland ka taliso wararka ka imaanaya waxay sheegayaan in bamgacmeed lagu tuuray gaari u saarnaa saddex ka tirsan ciidamada isku dhafka ah ee magaalada Galkacyo amnigeeda ka shaqeeya ee labada maamul ka soo kala jeeda
dhaawaca sarkaalka waxaa la sheegaya inaanu ahayn mid adag sidoo kale waxay dhaqaatiirta magaalada gaalkacyo sheegeen in uusan sidoo kale fududeyn uu meel dhaxa yahay ma jirto qof kale oo wax ku noqday waxaana bando lagu soo rogay magaalada gaar ahaan aagii ay wax ka dhaceen oo ciidamada ammaanka ee puntland xilligan howlgallo ay ka wadaan daliska africom yidhaahdo ee maraykankana wuxuu faahfaahin ka bixiyey howlgal ama weerar ee al-shabaab aroortii hore ee maanta ku qaadeen saldhig militariga kenya waa militariga maraykanka ay ku leeyihiin gobolka lamu ee waddanka kenya qoraal ka soo baxay africom waxaa lagu yidhi annaga oo la shaqaynayna saaxiibadan kenya saldhigga ciidamada cirka ee maraykanka waa nadiif waxaan ka guuleysanay koox argagixisa oo weerar soo qaaday mana jirto wax khasaare ah oo weyn oo soo gaaray ciidamada iyo saldhiggaba sidoo kale africom waxa ay weerar buuboonin iyo sidoo kale beenaabuur ay ku tilmaameen qoraallo isdaba joog ah oo ka soo baxay al-shabaab bogga ay wararka ku baahiyaan iyo sidoo kale telefishin al-shabaab ay leeyihiin oo muuqaal ah oo sida lagu sheegay in saldhigga ay la wareegeen diyaaradan ay gubeen dhaqanka al-shabaab waa nooc ka mid ah brobagandada argagixisada lagu yaqaano waxa ayna ujeedadeedu ahayd inay marin habaabiyaan dadka aan ka warqabin sida wax u dhaceen ayaa lagu yidhi qoraalka africom waxay sheegeen inay sii wadi doonaan howlgalka ay ka wadaan soomaaliya iyo wadamada bariga afrika oo ay xoojin doonaan dagaalka ay kula jiraan al-shabaab markaa saaxiibayaal waxaa ku soo dhawaataan xubinta kalamaan